dhammaanteen isugu hambalyeynaynaa munaasabadan 14 August aas-aaskii magaca Galmudug oo runtii noo ah astaan dowladnimo oo ay Galmudug gaartay laga soo bilaabo maalintaas. dadka reer Galmudug waxay xasuusanayaan mas-uuliyiintii iyo madaxdii magacan aas-aaskiisii sameeyey, kuwii midnimada iyo wadajirka ka soo shaqeeyey, kuwii maalinba heer soo dhaafiyey soona gaarsiiyey Galmudug mid ah, Galmudug dowlad ah oo keenay quruxda iyo dowladnimada aan haysanno oo caawa ku naaloonayno keenay. waxaan leenahay intii dhimatana Allah u naxariisto, inta noolna waa u mahadcelinaynaa. waxaana leenahay hore loo sii socdo, qof walibana qaybtiisa ka qaato sida dadka taariikhdaas u galeen. runtii waxay naga mudan yihiin geedi socodkaas dadkii ka soo qayb qaatay xasuus iyo mudnaan gaara. sidii horeba loo wada xusay 14 August 16 sano guuradan waa maalintii la yagleelay magaca Galmudug. intii ka dhimaneedna waxaa ku soo daray geesiyaasha iyo mas-uuliyiinta aan sheegnay oo maalinba intii tallaabtii loo baahnaa soo qaadayay ilaa ay tahay caaway dowlad buuxda Galmudug. waxaan agsanaynaa oo aan u soconnaa oo aan ku taamaynaa horumar maalinba meel soo joogay, maalinba cad lagu sii dari doono, maantana meel fiican maraya. waxaan rabnaa calaamadaha ugu fiican oo horumarkeenna saacidi kara oo gacan sii kara inaan dhammaanteen ka wada shaqayno, gacanta ku wada hayno. maxay tahay? waxay tahay waa xasilooni amni, xasilooni siyaasadeed, xasilooni cid kasta oo wax nagu daranaysa ay ku qanci karto. marka aad waddan tegayso, haddii aad maal gashanayso, waxaad fiirinaysaa waddankaas xasiloonidiisa siyaasadeed. haddii aad degayso, waxaad fiirinaysaa waddankaas xasiloonidiisa siyaasadeed. xitaa haddaad dalxiis u tegayso, waxaad fiirinaysaa marka hore xasiloonidiisa siyaasadeed. maxaa yeelay amniga iyo waxa loo baahan yahay oo dhan waxaa keena xasilooni siyaasadeed. marka waxaan rajaynayaa dadka maalgashiga doonaya xasilooni ay ku maalgashadaan Galmudug inay maantana leedahay kuna sii socon doonto. waxaan rajaynayaa dhammaan wanaagga iyo horumarka laga eego bulsho ama dal ama state oo ah saldhigga ama sida ay systemka iyo sharcigu u kala shaqeeyo. waxa weeyaan markii sharcigu shaqaynayo oo sharciga iyo qofka uu sareeyo sharciga, waa meel lagu kalsoonaan kara meeshaas. waxaan rabnaa inaan dhammaanteen ka dambayno, naga sareeyo, na hoggaamiyo sharciga iyo kala dambaynta iyo dowladnimada. waa meesha si hore u sheegnay wax walba laga eego dalkaas ama statekaas see u shaqaynayaa sharcigiisu, see looga cabsi qabin inay shaafalato noqoto oo ay marba meel ka liqliiqato. waa ka xumahay Soomaaliya saldhigashada sharciga guud ahaan uu ku yaryahay. waxaa nagu badan inaan jeebka kala soo baxno arrimo gaar ah ama rabitaan gaar ah. taasna waxyaabaha dib u dhigi kara dal, bulsho horumarna diidi kara
bay kow ka tahay waxaan rajaynayaa dhammaanteen reer galmudug meelaan joognaba shuruucdayada nidaamkayaga dowladnimo ee noo degsan inaan ka dambayno oo ku dhaqanno guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ku habsatay sidaan dhowr jeer baan ka hadalnay abaar baahsan oo runtii saameyn weyn leh reer galmudugna intooda dhibkaasay wax ka qabaan dalkay la qabaan anigoo fursaddan munaasabadda 14 August uga faa'iidaysanaya dadka reer galmudug meelaad joogtaanba walaalayaal dadka walaalihiina ee tabarta daran ee ay abaartu ku dhifatay soo gargaara si gaargaarna u gargaara si guudna u gargaara oo dhammaan aan iscaawinno oo aan qofku wax dheer yahay intuu dheer yahay ku taro insha allah taasna intaasaan rabaa inaan baaqaas ugu diro mar kale habeenkan weyn 14 August dadka reer galmudug qalbiyadooda ku weyn taariikhdii dibadda loo aasay ama salka loo dhigay magaca galmudug mar kale way isugu hambalyeynayna meelaan joogno waxaan leenahay reer galmudug guud ahaan dal iyo dibad hambalyo 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 waxaan si gaara reer Cadaado caawa ugu ammaanayaa sida ay runtii u doorteen golihii deegaankuna u doortay guddoonkii degmada Cadaado waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaadna mudantihiin inay degmooyinka kale ee galmudug ay idinku daydaan isu tanasulka isqaadashada iyo inaad doorasho xor iyo xaala qabsataan waxaad kaloo reer Cadaado ku ammaanantihiin inkastoo anigu inaan ammaano dadka kale ammaanada iga fiicnaaye waxaad ku ammaanantihiin meeshii galmudug lagu mideeyey gogosha loo dhigay ay ku gaashaan qaaday inay tahay degmada Cadaado halkaa ka sii wada sida aad gogoshii hore u dhigteen doorashadana meelihii ugu hormaray galmudug aad markii hore ahaydeen haddana soo bandhigteen sida doorasho lagu tartamay oo weliba tartan xooggan lagu tartamay markii la kala guulaystay la isu hambaliyeeyey gacmaha la isqabsaday laga wada shaqeeyey wada jirka iyo midnimada sidaa taas tusaalahaas ku socda halkaas ku socda reer galmudugna waa idinku dhisan doonaa insha allahu tacaala waana mahadsantihiin reer Cadaado marka maadaama aan howlo shaqo iyo halka u nimid ayaan August nagu qabatay waa mudnaydeen caawa la idinku qabto xafladdan lagu qabto waa mahadsantihiin way soo wada hambalyeynayna way soo wada mahad celinaynaa sanadkan sanadkiisa waxaan rajaynaynaa barwaaqo bashbash midnimo wada jir annagoo cadawga iska xoreynaa inta meelaha yar uu naga joogo inaan ku gaarno dhammaanteedna gacmaha is qabsanno reer galmudug meel la joogaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu